موعد inaan ka hadlo midka ugu horeeya waxa weeyaan warsideeda bini aadamku ilaahay baa wada abuurtay ilaahay hadduu wada abuurtayna wuxuu siiyey samac iyo basar wixii xun isku diido wixii fiicanna uu ku aqbalo wixii danihiisana awood uu ku qabsadaa ilaahay siiyey dabeecaddaas inagu wareegsan oo si kastaba aynu arkayno oo dabayl leh oo bad leh oo biri leh oo beer leh oo xoola leh ilaahay bini aadamka ayuu ka saramariyey wuxuu siiyey awood uu ku bedelo uguna tasarrufo sida isagu isdoonay had walba ciddii fahamtay awooddaas weyn oo ilaahay siiyey waxbay ku qabsadeen dhibaatooyinka dabeecadda kaga imaanaya ama bini aadam kaga imaanaya markaa ugu tabaabushaysten waxay ku qabsadeen waa anfaceen qolo walba noloshoodii ayay ku hanteen qoladii karteen waxay kaga baxeen faqaaradii waxay kaga baxeen jaahilnimadii waxay ku qabsadeen danahoodii ayay ku xaqiijiyeen kuna sugeen inaan dhibaato ugu imaanin ama ay dhibaatadii ka timaadaba ay uga gaashaanteen say uga hortagaan markaan sidaa leeyahay waxa weeye balorta awooddii ilaahay ina siiye ku camalfalkeedii allah ina garansiiyo shacbiga Soomaaliyeed bini aadamkaas kale tuu ka mid yahay oo badan haddana waa markaan leeyahay dal taajira iyo dad faqiiraha isku dul nool dadku faqiir weeye laakiin dalku taajir weeye ilaahay wax walba waa dhigay bad buu dhigay beer buu dhigay xoolo ka badiyay hawo fiican buu siiyay kulligeen shaarar baynu qabna 12 bilo shaararkaas qabayna adduunka meel badan kama dhacdo taas dhowr nooc oo labis waa in la isku bedela oo dhaxanta mid la isaga celiyo oo mid qorraxda la isaga celiyo oo mid dabayshiya balaayo waaweyn la isaga celiyo naga aad baa ilaahay noogu roona laakiin waxaad moodaa ama asal aqoon darro haynoo geyso ama isticmaarba intay iyagu taladooda iyo tabartooda iyo dantooda iyo dalkooda iyo naftooda iyo ilaahay inta aamina ay wax qabsan lahaayeen waxaad moodaa aad inay ugu janjeeraan cid kale inay wax ka sugaaneen waxaad cid kale ka sugtay ma ku dhargin karaan maya ma ku dhargin karo bariya aadan ma ku dhargin karaysaa weligaa kuma dhargaysa wax kastaba ha lagu siiyo inta ugu xoolo badan adduunka hadday waxooda kugu shubaan weligeed ku deeqi mayso waxaad adigu gacantaada ku qabsato iyo maskaxdaada iyo taladaada iyo garashadaada waxaad ku qabsatay wax ku deeqi kara intaasaa jira oo uu la jiro iimaan